wuxuu uga jawaabi waayay laanno concessionka ina danina waxa ugu weyn oo xamar ka rabaa waa in uu noqdo sanadka iyo housekaba dadka loo magacaabayo ee maakhir inuu isagu personally inuu personally isagu Puntland laga hadlo marka isagu cod u helo isagii hadhowto dee wuxuu noqonayaa nin la yimaada inuu yiraahdo anaa baystaahina madaxweyne noqdo ama prime minister noqdo awoodiisa ayaa dee muuqanaysa haddana wuxuuba ku darsaday Jubaland oo alliance-ga dani wuxuu dhisaya qaabka wuxuu ku noqon lahaa istiraatiijiyada uu ka shaqeeyaa isaga iyo ina Faroole iyo Cabdiweli prime minister wuu ahaa ina farmaajahana prime minister nimada sabab uu ahaa inuu markii horena wasiir ka dhigo markii dambena prime minister nimada markii Kampala la isku qabtay ee raba inuu isaga iyo Faroole iyo Cabdiweli intuba waxay ay kuuriga u jiraan nin walba inuu xamar ama number 1 ka noqdo ama number 2 inuu madaxweyne noqdo ama prime minister noqdo la'aanta sool iyo sanaag maakhir ma hawaysan karo hadda hadiiba alliance iyo tol siyaasadeed Jubaland ka helayna dee wuxuu leeyahay muuqatana waaba tay ka hor yimaadeen ina farmaajo iyo cilmigan uu la waday saddexda gobol waaba takhasab ay noqdo heshiiska ay galeen horta koow wixii wax lagu dhoobdhoobi karo boqolkiiba boqol waa la jiraa laakiin haddana xal ma noqonayo oo haddadan aan joogno soo maanta salaasama ma hubno wiig ka bacdi waxa ay ku heshiiyeen inuu haddana sii soconayo laanno marba nin cadhooday oo isagu dan qaran iyo dan maaragtay xitaa meesha uu ka hadlayo aan ka hadlayna dan uu personally isagu rabo dee danaha iska hor imanaya oo dee waxay noqonaysaa Soomaalida inta waxay u badan danaha xooga saaraya danaha anigu wixii lagu heshiiyaba hadday noqonayaan wax inoo midho dhalaya boqolkiiba boqol waa taageersana in meeshaas ay degto oo adduun weynaha midaal baynu ka nahay marka laga hadlayo failed state ama dawlad burburtay oo wixiiba meesha ka baxday Soomaaliya ka koowa magaca